maalintaas ciise ayaa guriga ka baxay oo fadhiistay badda agteeda oo waxaa u soo ururay dad fara badan sidaa darteed dooni ayuu fuulay oo fadhiistay dadkii badnaa oo dhammana xeebtay taagnaayeen markaasuu wax badan masalo ugu sheegay isagoo leh beerihii baa baxay inuu wax beero oo intuu beerayey qaar baa jidka geestiisa ku dhacay kolkaasaa shimbiro yimaadeen oo cuneen qaar kalena waxay ku dhaceen dhul dhagax ah oo aan caro badan lahayn kolkiiba way soo baxeen waayo caradu hoos uma dheerayn laakiin qoraxdu goortay soo baxday way gubteen waana ingegeen waayo xidid maa lahayn qaar kalena waxay ku dhaceen qodxantiina waa soo baxday oo ceejisay qaar kalena dhul wanaagsan bay ku dhaceen oo ay midho dhaaleen mid 100 midna 60 midna 30 kendego wax laga maqlo laho ha maqlo markaasaa xertii u timid oo ku tidhi maxaad masalo ugula hadashaa wuxuu u jawaabay oo ku yidhi idinka waa laydin siiyaa inaad waxa qarsoon ee boqortooyada jannada garataan kuwaase lama siiyo waayo ku alla kii wax haysta waa la siin doonaa waana loo badin doonaa kii aan waxba haysanse waa laga qaadi doonaa wuxuu haysto sidaa darteed ayaan masaalo ugula hadlaa waayo iyagoo arkaya ma arkaan oo iyagoo maqlaya ma maqlaan mana gartaan iyagay u noqotay wax sheegidda Matayos iyagoo leh maqal baad ku maqli doontaan mana garan doontaan idinkoo arkaya waxbaad arki doontaan idinmana dhaadhici doonto waayo dadkii qalbigoodu waa qalabsanaaday oo dhibbay dhegahooda ugu maqlaan indhahoodana way isku qabteen si aanay indhaha wax ugu arkin oo dhegaha wax ugu maqlin oo qalbiga wax ugu garan si aanay u soo noqon oo aanan u bogsiin laakiin waxaa barakaysan indhihiina waayo waxbay arkaan iyo dhegihiina waayo waxbay maqlaan runtii waxaan idinku leeyahay nebiyo badan iyo niman xaq ah ayaa doonay inay arkaan waxaad aragtaan mana arkin iyo inay maqlaan waxaad maqashaan mana ay maqlaan haddaba maqla masaalkii beerayga mid kasta oo hadalka boqortooyada maqla oo aan garan waxaa u yimaada kan shar kale oo ka dhigta wixii qalbigiisa lagu beeray waa kan kii jidka geestiisa lagu beeray oo kii meelaha dhagaxa ah lagu beeray waa kan hadalka maqla oo kalkiiba farxad ku qaata xididka isagu ma leh laakiin wakhti yar buu sii jiraa oo goortii dhib ama silic ugu dhaco ereyga aawadiis markiiba waa ka xumaadaa kii qodxanta lagu dhex beerayna waa kan hadalka maqla oo ka weelweelidda dunidan iyo sasabidda maalka ayaa hadalka ceejiya oo wuxuu noqdaa mido la'aan kii dhulka wanaagsan lagu beeray waa kan ereyga maqla oo garta oo isagu waa kan midho dhala mid 100 midna 60 midna 30 masala kale ayuu u saaray oo wuxuu yidhi boqortooyada jannada waxaa loo eekaysiiyaa min beertiisa abuur wanaagsan kaco laakiin waxaa yimid cadowgiisa intii dadku hurday oo wuxuu sareenka kaga dhex abuuray go'onno markaasuu tiri laakiin markii geedku soo baxay oo uu midho dhalay markaasaa goconnadii soo noqotay kolkaasaa odayga reerka addoommadiisu u yimaadeen oo ku yidhaahdeen sayidow miyaanad abuur wanaagsan beertaada ku abuurin xaggee haddaba goconnadu uga timid wuxuuna ku yidhi nin cadow ah ayaa waxaan sameeyey addoommadii waxay ku yidhaahdeen ma waxaad doonaysaa haddaba inaanu tagno abuurino wuxuuse ku yidhi maya
waaba intaasoo goortaad go'aannada ururinaysaan aad sareenka warojisaan labadoodu haysla baxaan ilaa beergoyska oo wakhtiga beergoyska waxaan kuwa hooye ku odhanayaa horta waxaad ururisaan go'aannadii oo xidhmo isugu xidha in la gubo laakiin sareenka ku soo ururiya maqsinkayga masala kale ayuu u saaray oo wuxuu yidhi boqortooyada jannada waxay u eg tahay iniin hardal kan uu nin qaaday oo beertiisa ku beeray taas waa ka wada yar tahay iniinaha oo dhan laakiin goortay weynaato way ka weyn tahay dhalatada oo dhan oo waxay noqotaa geed dheer si ay shimbiraha cirku u yimaadaan oo laamaheeda ugu degaan masala kale ayuu kula hadlay boqortooyada jannada waxay u eg tahay khamiir kan naagi intay qaaday ay 3 qiyaasood oo bur ah ku dhex qooshtay ilaa ay wada khamiireen waxaan oo dhan ayaa ciise masalo kula hadlay dadkii badnaa oo masaal la'aan kulama uu hadlinin iyaga si ay u noqoto wixii nebiga lagaga dhex hadlay isagoo leh afkayga waxaan ku furayaa masaalo oo wax qarsoon leh tan iyo aasaaskii dunida ayaan ku dhawaaqayaa markaasuu dadkii badnaa ka tegey oo guriga galay hertiisii ayaa u timid oo waxay ku yidhaahdeen ma caddeen misaalkii gaantadii beerta markaasuu u jawaabay oo ku yidhi kii abuur wanaagsan abuuray waa wiilka aadanaha beertuna waa dunida abuurka wanaagsanna waa wiilasha boqortooyada go'aannadiina waa wiilasha kanshar kale oo cadowga abuurayna waa ibliiska beergoyskuna waa dhammaadka wakhtigii dunida kuwa gooyaana waa malaa'igo haddaba sidii go'aannadii loo ururiyey oo dab loogu gubay sidaasay ahaan doontaa dhammaadka wakhtiga dunidu wiilka aadanaha ayaa malaa'igihiisa diri doona oo waxay boqortooyadiisa ka ururin doonaan wax kasta oo xumeeya iyo kuwa dembiga fala oo waxay ku tuuri doonaan foornada dabka halkaas waxaa jiri doontaa daroor iyo irkatiriqsi markaasaa kuwa xaqa ah ku dhalaali doonaan boqortooyada aabbahood sida qoraxdu u dhalaalayso kindhagalahu ha maqlo